sida la socotaan shalayto golaha shacabka Soomaaliland waxa uu ansixiyay ama uu codeeyay mooshin ku saabsanaa degmooyinka Taleex Aynabo iyo Baligubadle mooshinkaasu waxa uu ahaa in darajooyinka magaalooyinkaas taagan yihiin in laga bedelo oo loo dalacsiyo B sidoo kale isna waxa jiray mooshin kale oo ka barbar socday oo xildhibaano kamida golaha wakiilada ama shacabka Soomaaliland ay yakuna keeneno Aynabadan laftigeeda iyo Baligubadle iyo Taleex intuba ay ku jireen oo barkood ay u arkayeen in tirada halka saddex ay xildhibaanada qaarkood soo bandhigeen in laga badiyo degmooyin kale u qalma darajooyinka la doonayay in laga badiyo inta labada fikir ee golaha la keenay ee goluhu uu badna ansixiyay badna ka tagay horta arintu taasay daareyd anigu markaa waxa iga khusay waxa weeye waxaan jecelahay horta waxaan ay xildhibaanka soo jeedo degmada Aynabo laga soo doortay waxaan kala ahay xildhibaan ku dhashay magaalada oo meeshan ku soo barbaaray ku soo ababay xudurtaydu taalo sidoo kale waa meeshii la iga soo doortay oo waliba aan ahaa xildhibaanada ugu codka badnaa ee shacabweynaha gobolka Sool gaar ahaan Saraar iyo waliba Aynabo oo degmadiya ay si wanaagsan oo milgale oo waafiya ay ugu hagar bixeen oo codkoodii ay siiyeen waajibkaygu wuxuu yahay waxa weeye wax kasto dan u ah haday noqoto xagga horumarinta iyo dhinacii la eegaba oo horumarka taabanaya deegaankan ka soo jeedo ama la iga soo doortay inaan ka shaqeeyo ayaa igu waajiba waxa kale igu waajibaan u dhaartay shacabweynaha reer Soomaaliland degmooyinkiisa iyo goboladiisa meel kasta iyadana wixii doorkayga markaa waajibkayga inaan ka guto dhaartaan u dhaartay waxa weeye inaan dalkayga iyo diintayda iyo goboladayda iyo Soomaaliland oo dhan sida ugu haboon oo Aynabana kamid tahay inaan ugu shaqeeyo waajibaadka ay xambaarsan Aynabana party bay ka qayb bay ka tahay waajibaad guud oo dalkooda camimayana uu yahay shakhsiyan markaan iyar anigu aan description isku sameeyo waxaan ku soo barbaaray oo anigoo dhowr iyo 10 jir oo 20 gaarin waxaan tagay wadamada qurbaha aqoon fara badan iyo digriyo fara badan oo maamulka iyo maareynta ah oo dhinaca arrimaha ijtimaaciga oo fara badan baan runtii ka soo bartay wadamada waxaan ogsoonay wadamadaas inay yihiin wadamo fara badan wadamo xadaarad iyo aqoon durugsan ay ku duugan tahay shayga marka la soo bandhigayo ama mooshinkan oo kala ana wuxuu baahan yahay marka khubara loo saaraa way ka soo tala bixiyaan sida ula muuqato waxaanu sharciga muwaafaqsan yahay sax ma yahay baarlamaanka hore muxuu ku diiday maxaa wagniis soo jira maxaa lagu taageeri karaa maxaynu umada ka gadi karaa waxyaalahaas oo dhan baa runtii la soo eega intaas oo dhan shalayto ma aysan iman anigu si gaar ah anigoo u arkay nin oday oo xildhibaan oo runtii ilaa dhowr iyo 30 meel fara wadamo aqoontu iyo hawlahan kale markay yimaadaan iyo maamulka maareyntu ay runtii aad iyo aad looga fiirsado talaabooyinka la qaadayo iyadoo shacabka dantiisa laga eegayo mar walba haddana mooshinkii leeyma keenin mana saxiixin lamana oran saxiix haba jooga lama oran war mooshinkan degmadu Aynabo ku saabsan yahay ka qayb qaado saxiix taa de waa weeye shacabka inaan soo bandhigo weeye waxa kale oo jira saan maqlay in shirar arintanu ku saabsan marumba mubemba kulli qiila waqalaas inay shirar dhaceen oo waliba anigu barkoodan saxaafada ka arkay oo lagaga soo hadlay mawduucuna mar haduu uu taabanayo constituency-gaygi siyaasadaydu meeshay doonto ha fadhido ama dhabarka ku hayso xaq waxaan u lahayn lagala tashado taasuna ma aysan dhicin saadarteed waxaan u arkay fudayd iyo nooc ma waxaan oran karo siyaasad ayaa nooc ma arintu ay igula kayd arimahan kale uma baahna in la siyaasadeeyo waa arimo mucaarad iyo muxaafad cidii ku abtirsanaysa ay si degan mar haday degmooyin iyo deegaano ay taabanayso war shuruudi looga baahnaa ma soo buuxin mise ma soo buuxin iyo maxaa ku haboon iyo maxaa hore loogu diiday waxyaalahaas in la iska weydiiyo
qodobada aan anigu rabay inaan aan sida xoogga loo saaro oo lagaga hadlo taas bay ahayd mawduuc intaa le capacity-giisa raba Somaliland in loo soo bandhigo war Caynaba maxaa biil lagu siinaya ama Salaxle maxaa biil lagu siinaya oo koow kale maxay kaga duwanaanaysaa oo raba dadka in loo soo bandhigo oo raba dadka in la qanciyo in khilaala 5 daqiiq la soo dhigo haddana within 10 minutes gudahood haddana gacanta loo taago aragti ka duwan baan anigu qabay micnuuna ma hayno Caynaba diidanay Caynaba anagu waxaan u wadnay mooshin kan ka weyn oo inay u qalanto inay u qalanto iyadoo degmooyin kale oo dalka Soomaaliland ka mid ah waajibaadkana saaran waxa weeye inaan soo bandhigno iminka gabilay oo kale tusaalahan baa loo ansixiyay laakiin gobol ahaan goluhu uma ansixin maxaa u diiday inaan soo dhigno nidhaano gabilay ha laga dhigo gobolnimadeeda loo ansixiyo maxay u laalaataa waajibaad baa iga saaran gabilay iyo Caynaba oo isku kaymid qarankan u dhaartay intaasoo sanay ku shaqaysaa oo lagu magacaabay ilaa haddana golaha sharci dejintu golaha shacabka Somaliland ma ansixin in la soo dhigay weeyada kuwa kale u qalba Caynaba hadday tahay Baki hadday tahay gabilay hadday tahay dhammaantood bay u qalmaan waxaana shuruudaana gobolada looga dhigo waxa weeye sources inay leeyihiin dalka maxay ku soo kordhin karaan ma isbixin karaan deegaankooda baaxadooda juqraafikada waa intee population ku nool waa intee shuruudahaas oo dhan marka la eego waxaan u arkay in diraaso fiican inta lagu sameeyo aanu dadka ka gadi karo arinta ugu muhiimsan taas bay ahayd media marka hadalka waxaan ubuucdiisa soo noqday media waxaan ka arkay ama social media ama warbaahinta qaarkood in la leeyahay xildhibaan goox waxa uu ka codeeyay deegaankiisa Soomaalidu waxay tiraahdaa maxay ahayd ilaahu niman xaajoogan maxay عذابين أما waxaan sheeg sixir ka daran waxa weey anigu degmadeedii iyadana kaan been gareynayay iyadana uu oloolanayay waajibkayga weey waxaan ku oloolanay maanta waxa la ansixiyay biiba ahaydee baan u waday waliba si loo jigo oo macquul ah inaan u soo bandhigno aanu dadka reer Somaliland Caynaba maxay ugu qalataan kala dhicna runay laakiin la islaamada sugune sidan ay biida ay u dhacday shalatana waan sheegay ayaan ku barakeenayaa oo mar hadii goluhu wax kasto aan ka qabo golo qodob la keeno oo xildhibaanadu ay ka doodaan xildhibaankana xaq u leeyahay inuu ama gacantana u taago ama uu ka doodo goluhuna uu ansixiyay sidaas baan shalatana ku sheegay maantana ku barakeenayaa laakiin muhiimadu ma aynan Caynaba ka codeeyay waxayd inay halkii hadda taagantii biyo qodobadan la ansixiyay wax ka sareeya loo raadiyo horumarku ma aha in Caynaba biyo loo soo qaado kaliya horumarku waa badan yahay boarding schools bay u baahan yihiin xanaanay magaaladu u baahan tahay MCH u baahan tahay boarding schools bay u baahan tahay riigag macaan bay u baahan tahay biyo macaan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay waxyaalo fara badan saadarteed waxa weey anigu waa magaaladeedii koow xuduntayda taalo guriyaan ku leeyahay hanti baan ku leeyahay oo din cirka ka soo dhaco intuu qadifado habeenkii la tago meesha banaanka la seexdameeyay guriyahayga ayaan galaa daftaftuna ma fiicna meeshuna ma aha sidii qabiilkii Zuluga inta qoryaha la qaatay marba la jecleynayay waxa weeye wax la soo bandhigaya inay noqdaan wax miirka iyo maanka iyo aqoon iyo aqli iyo hufnaan iyo qancin wanaagsan